Soomaaliya cagaaran oo dhulkeedu cagaaran yahay oo barwaaqo yahay aan rabnaa abaaraha iyo roob yarida waa qadar rabbi waaye ilaahay xaqiisa ka timid laakiin waxa loo aaneeyaa haddana geeda yaraanta loo aaneeyaa dhulka desertada aan geedaha lahayn roob ma ka da'o dhulka hawdka oo geedaha badanana mar walba roobku waa ka da'a waaba aragnaybo qadarta rabbi ka sokow meeshii geeda leh meelaan geeda lahayn waa ka roob badan tahay dhulkeedana waa ka nafaqo badan yahay oo waa ka geeda badan yahay haddii kale lama degaan oo muxuu ahay bacaadka uu saas u bidaayo ay wada noqonay bacaadka badda agteeda joogaa inta soo socdaa noo wada imaana geedo celiyo oo maxaan ku yiraahdaa haddaan leeyahay marka qof walba dadka reer Baydhabo waxaan ugu baaqaynaa in qof walba gurigeeda ay geed ugu yaraan hal geed 2 3 4 5 qofkii ka sii dhiga waa ka sii fiican yahay waliba waxa la rabaa geed nafc loo mirood oo dadku iyo dugaagta iyo shimbiraha iyo wixii xataa ka nafaqaysan iyo geeda kale oo waaweyn oo sida kuwaan oo kale ah oo waaweyn in helaan laakiin qoys walba gurigiisa geed muxuu ahaay miro leh iyo geed cagaar oo geedkan muxuu ahaay waaweyn oo kale ah in uu beero qof kasta geedku aduu beeri karo waxa la yiri xadiidka rasuulka kaleey salaatu wasalaam muxuu ahaay saan adoo geed u haayo oo beeri raba hadii qiyaamada ay dhacdo beer geedka ka tagay qiyaamada ay dhacdo inta dhahday tuurtida ka cararin dhulka sur gili marka beerista geedaha iyo nolosha geedaha waasaas hadii alla yiraahdo marka reer Baydhabo waa la isweydiinahay meeqa geeda beerteen aldhaha marka waxaan rabnaa maamulka Baydhabo gobolka duqa magaalada gudoomiyaha degmada waxaan ka rabnaa hawshaas inay indha gaar ayagana ay u yeeshaan oo magaaladan magaalo cagaaran oo nadiif ah oo qurux badan ay noqotaan rajaynayna hadii alla yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin